Gabadha wariyaha ah ee England Show ee caanka ka ah baraha bulshada ayaa meherkeedu waxa uu ka dhacay magaalada Hargeysa, waxaana iscalmadeen saygeeda cusub ee Idris Hawraar Media, kaas oo leh barta YouTube-ka ee Hawraar ee muuqaalada heesaha la soo geliyo. England Show oo ah wariyad caan ah baraha bulshada iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ee aad u yaqaanaan, ayaa meherkeedu waxa uu ka dhacay magaalada Hargeysa. England Show ayaa maalmihii ugu dambeysay waxay socdaallo kala duwan ku kala bixinaysay dunida dacaladeeda. Socdaalkii ugu dambeeyay ee Hargeysa ay ku timid ayaa ahaa sidii ay isku mehersan lahaayeen wiilka la yidhaaho Idris, kaas oo leh barta YouTube-ka ee Hawraar Media, muuqaalada heesahana lagu soo upload gareeyo. Gabadha wariyaha ah ee England Show ayaa in badan waxay ka soo muuqatay meherro fara badan iyo aroosyo dhacay, taas oo gebi ahaanba hambalyo ka dirtay. Laakiin sidee waqtigan waxaa la joogaa xilligeedii oo hambalyada la soo dirayo. England Show dadka ay asxaabta yihiin iyo guud ahaan dadka taageerada ka haysato ayaa hambalyo u soo diray, taas oo baraha bulshada aad arkayso sawirada iyo muuqaalada sawirka odaygeeda ee xajkeeda cusub, halkaas oo hambalyo loo soo diray. England Show ayaa ku caanbaxday barnaamijyo kala duwan oo ay samayso, taas oo barnaamijkeeda ugu caansan uu yahay England Show. Waxaana la sugayaa dhowaan inuu arooskeedu ka dhaco magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland. Waxaana la filayaa in England Show iyo Idris oo ah saygeeda cusub ee hadda iscalmadeen uu arooskoodu ka dhici doono Hargeysa, taasina ay kasoo qayb geli doonaan dad aad u fara badan oo isugu jira wariyaal, fanaaniin iyo mas'uuliyiin. mahadaliyo maalin lagu farxee mudaniyo marwa meherkoodii dhacay. marxabeeyo midagtays la hela sacabiyo mashxarad wadashuu aroos. wamahadaliyo maalin lagu farxee mudaniyo marwa meherkoodii dhacay. midagtays la hela sacabiyo mashxarad wadashuu aroos. أولاد مسؤولة مسلم أهودية محمد يروداي مبتئو مولى خيدين سيو. أولاد مسؤولة مسلم أهودية محمد يروداي مبتئو مولى خيدين سيو. miisaanu socod muuqiyo hanan maarin dhalaal rodo midab qurxoon. madaxeerakayo maangiyo midkii aqoontiisa malad maxamed okahee. miisaanu socod muuqiyo hanan maarin dhalaal rodo midab qurxoon. madaxeerakayo maangiyo midkii aqoontiisa malad maxamed okahee. أولاد مسؤولة مسلم أهودية محمد يروداي مبتئو مولى خيدين سيو. أولاد مسؤولة مسلم أهودية محمد يروداي مبتئو مولى خيدين سيو.
maskaxdiyo qalbiga mawjadaha dhiigiyo maankaad ku midhanto malabaad u noqotee maamuuska gacal muxabbiyo jacayl ayay maxamadow hadhow kuu qabtaa maskaxdiyo qalbiga mawjadaha dhiigiyo maankaad ku midhanto malabaad u noqotee maamuuska gacal muxabbiyo jacayl ayay maxamadow hadhow kuu qabtaa أولاد مسؤول مسلم أهوديله محمد يروداي مرتقو مولا خيدي تسيو أولاد مسؤول مسلم أهوديله محمد يروداي مرتقو مولا خيدي تسيو mankiyo iftiin u bixii mandheeriyo laas qore ka muuqda midhiqsiga kumo sida geed marariya dhirta oo magasho mirixii baxan isla kugu masaay mankiyo iftiin u bixii mandheeriyo laas qore ka muuqda midhiqsiga kumo sida geed marariya dhirta oo magasho mirixii baxan isla kugu masaay أولاد مسؤول مسلم أهوديله محمد يروداي مرتقو مولا خيدي تسيو أولاد مسؤول مسلم أهوديله محمد يروداي مرتقو مولا خيدي تسيو أولاد مسؤول مسلم أهوديله محمد يروداي مرتقو مولا خيدي تسيو أولاد مسؤول مسلم أهوديله محمد يروداي مرتقو مولا خيدي تسيو gabadha wariyaha ah ee England show ee caanka baraha bulshada ayaa meherkeedu waxa uu ka dhacay magaalada Hargeysa waxaana iscalmadeen sayigeeda cusub ee Idris Hawrar Media kaas oo leh barta YouTube-ka ee Hawrar ee muuqaalada heesaha la soo geliyo England show oo ah wariyad caan ah baraha bulshada iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ee aad u yaqaanaan ayaa meherkeedu waxa uu ka dhacay magaalada Hargeysa England show ayaa maalmihii ugu dambeysay waxay socdaalo kala duwan ku kala bixinaysay dunida dacaladeeda dagaalkii ugu dambeeyay ee Hargeysa ay ku timid ayaa ahaa sidii ay isku mehersan lahaayeen wiilka la yiraahdo Idris kaas oo leh barta YouTube-ka ee Hawrar Media muuqaalada heesahana lagu soo upload gareeyo gabadha wariyaha ah ee England show ayaa in badan waxay ka soo muuqatay meherro fara badan iyo aroosyo dhacay taas oo gabi ahaanba hambalyo ka dirtay laakiin sidee waqtigan waxa la joogaa xilligeedii oo hambaryada la soo dirayo England show dadka ay asxaabta yihiin iyo guud ahaan dadka taageerada ka haysto ayaa hambalyo u soo diray taas oo baraha bulshada aad arkayso sawirada iyo muuqaalada sawirka odaygeeda ee xajkeeda cusub halkaas oo hambalyo loo soo diray England show ayaa ku caanbaxday barnaamijyo kala duwan oo ay samayso taas oo barnaamijkeeda ugu caansan uu yahay England show